الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. maanta waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed inaan kala qayb galno dhibaatada weyn ee soo gaartay. waxaan joognaa Erdogan isbitaal ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaan halkaan ku bixinaynaa dhiigga xoogga dalka dadkii dhibaatada ka soo gaartay argagixisada shalayta ay u geysatay cadawga ummadda Soomaaliyeed oo u bartay daadinta dhiigga Soomaaliyeed. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed marba wuxuu u taagan yahay gurmadka shacabka ama dhiig bixin ha noqoto ama u gurmad masiibo markay timaado ha noqoto mid hore iyo mid dambaba sida wabiyaasha fataha bacad celinada iyo wixii la midaba abaaraha iyo wax kasta masiibaha shacabku yimaada xoogga dalka wuxuu u taagan yahay inuu kala qayb qaato. haddana maanta waxaan joognaa Erdogan isbitaal waxaan bixinaynaa dhiiggaan bixinaynaa dadkii ay dhibaatadu ka soo gaartay qaraxyadii cadawga shalayta la beegsay shacabka Soomaaliyeed. mideeda kale saakayto waxa xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan cutubyada gaarka sida gaarka u tababaran oo danab iyo gargor ay ku guuleysteen inay la wareegaan magaalada Masaajid Cali Guduud iyo tuulooyinka ku hareeraysan. Masaajid Cali Guduud hore aan soo sheegnay magaalo istiraatiijiya weeye aad ay cadawga u daneeyo. tuulooyinka kale ay la wareegaan waxa kamid ah magaalooyinka la yiraahdo Burdacar iyo Daarusalaam. cadawga muddadii halka joogay wuxuu gubay dhammaan ceelashii biyaha iyo adeegyadii bulshada. wuxuu gooyay isgaarsiintii shacabka Soomaaliyeed u adeegsanaysay arrimahooda gaarka ah ama midda dhaqaale ama midda bulshada u adeegsanaysay. waxay barakiciyeen dadkii meesha joogay intooda badanna waxay ka qaateen cuntadii iyo daawooyinkii farmashiyaasha iyo bakhaarada yaalana way ka qaateen ayagoo la jeeda inay ka dhigtaan saad taakulayn oo ay kula dagaalamaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo xoogagga hubaysan ee kacdoonka shacabka Soomaaliyeed oo saaka ayaguna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed la hawlgalay. ana ku hadlaaya afka wasaaradda gaashaandhigga iyo wasiirka gaashaandhiggaba afka wasiirka wasaaradda ana ku hadlaaya waxaan u tacsiyeenayaa shacabka Soomaaliyeed oo halkaan dhibaatada shalayta ku gaartay. waxaan leenahay Allah intii dhintay Allah u naxariisto inta noolna Allah u boogadhayo dadkii ay ka dhinteen annagu aan ka mid nahayna samir iyo iimaan Allah naga siiyo. cadawgu ma ahan markii ugu horeysay meesha uu dhibaato ka geysto markii hadda ka hor asiga dhibaatada weyn 700 oo qof oo dhimatay u geystay. haddii aanu dagaalkan wadno oo cadawga dabada kaga siisa aan wadno haddaba aan dhulka uga sii qabanno intaan iyo in ka dhumidna naga dhiman mayso. halna waan ogsoonahay dadkay waa dad muslim ah ilaahay ajal musamaha u magacaabay qof walba ajashaasu markay dhamaato buu dhintaa ni qof kasta dhintay ajashii baa dhacday laakiin inaan ka dadaalno oo amniga iska kaashano oo ciidamada amniga iyo wasaaradda amniga iyo xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka aan gacan siino oo xogta cadawga la helo oo shacabka ku soo dhaxgabanayaan la qarin midda ugu wanaagsan weeye. laagna waxaas ay geysanayaan qof kasta waa inuu ka kulaado haddaan la dhiiranna cadawga gacanta lagu soo dhigi maayo. waan ognahay magaalooyinka waaweyn oo dadkooda ay aqoon inay ku dhuumaalaysanayaan sida Muqdisho kale oo dhibaatooyin ka geysanayaan magaalooyinka yaryarka iyo tuulooyinka waa la yaqaanaa ciidamaduna hawlgalkii bay sii wadaan. haddana waxay u soo gudbiyaan waajibaadkii labaad ee taliskooda iyo wasaaradooda ay amartay ee hadda sii fulin doonaan haddana u gudbayaan. haddana waxaan bixinaynaa dhiigii ragga iyo qaar waa baxshay aniga iyo tiim inta ila midka haddaan bixinaynaa insha Allah taala.